بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدنيالي مروين وان سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت بشو تهي كود نوفمبر لبضا كونيو شانيو طبانكا وحكسو وريغي حلقيان لو وريغي وزارة ده مدردن 5 سنوات يلا 3 بلود waxaan la wareegay bishii August 3deedii 2010 muddada 5 sanadood iyo 3 bilooda wax badan ayaa noo qabsoomay markaan la wareegay wasaaradda cidla may taagneen wasaaraddu waxay ugu horeeyay wasiiro khaasatan wasiirka ugu dambeeyay wasiiradii ugu horeeyay Cali Sanyare runtii wax badan ayuu ka qabtay wasaaradda dhismaheeda intii ka dambeysay waxyaabaha noo qabsoomay waxaan kan jecelahay inaan ka xuso inay leeyihiin maxaan idhaahdaa inay ka dhasheen dadaalka iyo hufnaanta iyo tacabka faraha badan leh ee ay geliyeen shaqaalaha wasaaraddu markaan wasaaradda la wareegay waxaan sameeyay qiimayntii waxaa ka soo baxay inay wasaaraddu u baahan tahay dubo habeyn amba qaab duqaabeyn dhinaca waxaan idhahdaa qaab dhismeedkeeda iyo falgalkeedaba wasaaraddu waxay ka koobnayd 3 waaxood bay ka koobnayd waaxda maamulka iyo waaxda qorsheynta iyo waaxda xogta waxa markaa ay soo baxday in loo baahan yahay in lagu kordhiyo 2 waaxood oo kale waaxda isku duwidda iyo waaxda horumarka 5 waaxood ayaan ku bilownay 5 waaxood ba runtii wax badan oo isbedela ayaan ku sameynay wax badanna way ka qabsoomeen haddii markaan wax aan u taabto aan ku bilaabo waaxda maamulka shaqaalihii markaan anigu waan ka dhaxlay wasiirkii ugu horeeyay waxay ahaayeen ilaa 41 maantana waa ilaa 127 marka wax ka soo kordhay dad gaadhaya ama shaqaale gaadhaya ilaa 86 qof baa ka soo kordhay oo inta badan u badan dhalinyaro runtii wada dhalinyaraba wada intooda badanna haystaan shahaadad jaamacadeed shaqaalaha 86 markii aan qornay halka kumaanaan deynin 20 kamid ah waxaan u diray macahadka tababarka shaqaalaha ee dawladda wax ku soo barteen ku korsan aqoontoodii waxayna jirtay ilaa 9 kamid ah ayaa helay deeq waxbarasho dibadda ah qaarkoodna waa bay soo dhameysteen oo way soo noqdeen waxaa kaloo ku soo kordhay wasaaradda xagga dhismayaasha xarunta dhexe markii aan la wareegay wasaaradda waxaan ku jiray xafiisyo aan badnayn 2 gurina way noo kareysnaayeen intii ka dambeysay waxaa markaa runtii isaguna dhammaad ku dhowaa gurigan iminka xarunta waa wasaaradda dabaqiisa hoose intii ka dambeysay waxaanu saaray dabaq kale dhismo kalena xagga dambe laga daray dhismo 3 dabaqina imika ayuu noo dhammaaday maanta wasaaradda xagga dhismayaasha xarunta waa xarumaha ugu waaweyn ee wasaaradda waxaa kordhay dhismayaashoo keliya laakiin tasiiraad badan haru jirin ayaanu ku soo kordhinay dhismayaasha waxaa ka mid ah library waana haru lahaan jirin waxaa ka mid ah qolka shirarka oo leh qalab kuu suurto gelinaya inaad caalamka oo dhan shirka la gasho video conferencing waxaa isaguna jiray studio animkaan ka duubayno hadalkan oo loogu talagalay diyaarinta wixii documentarieska waxaa isaguna jira qol loogu talagalay in maapka lagu sameeyo qalabkii maapka sameynaya yaalaan isna waxaa jira qol gaar aan uga dhignay kombiyuutarada waaweyn amba seerfarada wasaaraddu waxay lahayd 2 isu duwe mid joogay Boorama iyo mid joogay Burco ayay lahayd intii ka dambeysay waxaa noo suurto gashay inaanu ka sameyno 5 xafiis gobolada 6 marka lagu daro kan Hargeysa oo maanta 6 gobol ee rasmiga ah mid walba uu leeyahay xafiis u gaar ah wasaaraddu ay ku leedahay oo shaqaalihiisa gaarka leh oo qalabeysan waxaanu kaloo sameynay waxaanu magacawnay ilaa 7 isu duwe waanu magacawnay goboladii hore iyo gobolada cusub sida Selel Gabiley saaxil
Saraar, Sool, Baran, marka waxaa ku soo biiray isduwayaashaas oo dhan gobollada cusub iyo kuwii horeba ayaa wasaaradda ku soo biiray. waxaa kaloo isna aanu u sameynay oo ku soo daray qaab dhismeedka waaxda maamulka qaybta IT-ga oo aan runtii markii hore aan jiri jirin. waxaanu kaloo ku soo biirinay qaybta xidhiidhka iyo warbaahinta ama communication unitka wada lafteedu markii hore aan jirin. waxaanu kaloo sameynay 2 website ay wasaaraddu guud ahaan leedahay iyo mid aan ugu talagalay inuu noqdo kaydka waxa la leeyahay wixii qoraal iyo warbixina ee laga sameeyay Somaliland. waa 2 website oo aad loo visit gareeyo oo runtii qiimo badan loogu fadhiyo. xagga gaadiidka laftigeeda gaadiid yar baan ugu yimid wasaaradda laakiin maanta alxamdulillaah ilaa 17 baabuur ayaanu leenahay. xaaladooda haba kala duwanaatay inta badan inuu ku siiyey deeq. waaxda qorsheynta wax yar ka yar taato waxyaabaha aan ku soo biirinay waxaa ka mid ah in la sameeyo aragti qaran amba vision qaran kaasoo muujinaya saynu jecel lahay inuu noqdo inuu waddanku uu noqdo amba siduu jecel inuu u ekaado 2030 waxa la yiraahdaa aragtida 2030. waxaanu kaloo sameynay qorshe 5 sanadooda 2012 ilaa 2016. waxaan kaloo sameynay qorshe kale oo isaguna 3 sanadooda oo isna ahaa 2013 ilaa 2016. 6 gobol ee rasmiga mid walba qorshe loo sameeyay. waxa kaloo isna qorshaha lagu daray degmada Gabiley. marka 7 qorshe goboleed ayaanu isagana sameynay. waxaa kaloo la sameeyay istiraatiijiyadii iskaga filaanshaha cuntada iyo biyaha oo runtii aad iyo aad muhiim ah. waxaa kaloo tababaro badan loo sameeyey oo la dhisay waaxaha qorsheynta iyo xog ururinta ee wasaaradaha aan wada shaqeynta leenahay. taas iyadoo lafteedu runtii ay muhiim tahay waayo waxaanu adeegsanaa waaxaas baanu adeegsanaa si aan u helo xogtan uga baahanay wasaaradaha iyo hay'adaha dawligaaba. haddana markaanu waaxda xogta iyo wixii inooga qabsoomay 5 sannadood waxa ugu horeeya sharcigii xogta oo aan jirin oo aynu sameynay amba statistics looga af Ingiriisi waxa lagu yiraahdo. iyo lafteedu waxaan sameynay istiraatiijiyadii hagaysay waaxda xogta ururinta iyo lafteeda. waxaanu soo saaray intii 6 buug sanad walba waxay noo suurta gashay soo saaro buugga xogta qaranka ama Somaliland Figures buugga la yiraahdo. lafteeda waxaanu soo biirinay markii hore aan jiri jirin warsida 3 bilood la ah ilaa 20 nuqul ayaanu ka soo saaray ilaa hadda warsidaha soo sida xogaha ku saabsan ganacsiga ascaarta sarifka iyo wixii la halmaala. iyada laftigeeda waaxda waxa suurta gashay inay ka qayb qaadato ilaa 5 sahan oo waaweyn amba 5 survey ayay suurta gashay. markii ugu horeysay iyada laftigeeda ay suurtagal noo noqotay inaanu soo saaro amba inaanu eegno oo dabagal ku sameyno oo qiimeyno sicir bararka waddanka annagoo raacayna qaabka mataqaana loo soo saaro sicir bararka oo ah heer caalami. dalabtii waxaa noo suurta gashay inaanu soo saaro wax soo saarka guud ee waddanka amba GDP-ga waxa la yiraahdo. taasna markii ugu horeysay runtii ahayd ay taas noo suurta gashay. iyo lafteeda waxaan soo saaray maabkii rasmiga ahaa ee qaranka. hadii jeer maabkan isticmaala waa maab ay hay'adda qurumaha ka dhaxaysa soo sameysay oo marka qaarkood aan dhamaystirayn amba khaldan. markaasi arrinka meesha looga saaro waxaanu sameynay maabkii rasmiga ahaa ee ku saleysnaa xadkii xuduudii markii Ingiriisku waddanka joogay intaynaan isku darsan Soomaalida. waaxda xidhiidhka baa isu duwidda iyada laftigeeda waxyaabo fara badan ayaa ka qabsoomay. waaxdaas waa wax cusub bay ahayd. waxa ugu horeeya wuxuu ahaa inaanu sameynay sharcigii lagu maareynayay hay'adaha samafalka kuwa maxalliga iyo kuwa caalamigaaba. muddada 5 sannadood waxaanu diiwaan gelinay 564 hay'adood oo wadaniya iyo caalamiba ah. waxaa noo suurta gashay inaanu ka diiwaan gelino hay'adaha samafalka
wadaniga gobolladooda berigii hore waxaa khasab ahaan jirtay inay yimaadaan Hargeysa si ay isu diiwaan geliyaan. hadda maanta uma baahna. waxaad inoo suurta gashay marka ilaa 30 hay-adood oo wadaniyan inaanu ka diiwaan gelino gobollada. waxaanu sameynay database amba hab noo suurta gelinaya si yar inaanu ku helo warbixinta hay-adaha aanu diiwaan gelino ee samafalka. waxaa iyadana aanu abuuray markii hore aan jiri jirin inaanu sameyno wadaagayaal amba sector forums waxaa la yidhahdo wadaagayaal. waxaanu qabanay 204 shir oo isugu yimaadeen wadaagayaashaas. waxaa jira 8 wadaage oo midba uu qaabilsan yahay qayb qorsheynta sida biyaha, caafimaadka, maxaan idhahdaa dhaqaalaha, deegaanka, kaabayaasha. lafteeda waxaa noo suurta gashay inaanu qabanno 8 shir oo caalami ah oo ay ka soo qayb galaan madaxda deeq-bixiyaasha aynu wada shaqaynta aynu leenahay. waxaan lafteeda qabanqaabinay ilaa 10 shir oo heer qarana oo isugu jira waxyaabo fara badan. waxaa lafteeda noo suurta gashay inaanu dabagal ku sameyno amba qiimeyn ilaa 82 mashruuc. iyada lafteeda waxaa aanu dhammaystiray oo sameynay siyaasaddii hageysay qiimeynta mashaariicda amba monitoring and evaluation policy of English waxaa lagu yidhahdo. waaxda horumarkaasaan markii hore waan sheegay waxay ka qayb qaadatay sameynta qorshayaasha gobollada. waxay kaloo runtii ay kaalin mugla ay ka qaadatay sameynta iyo isu duwidda guddiyada horumarka ee gobollada. waxay lafteeda ay soo saartaa sanadkii buug xoga oo isagu koobaya xogta gobolka waan markii hore aan jiri jirin. waxaanay sameeyeen tababaro ayay u sameeyeen hay-adaha samafalka ee gobolka. waxaana isu dubarideen oo shirar bay u qabtaan 3 biloodlaa hay-adaha caalamiga iyo kuwa kale maxalligaaba ee ka shaqeeya ka howlgala gobollada. intaa haddii aan ka gudbo waxayna jirta barnaamijyo fara badan oo wasaaraddu ay qayb dhaxaale ay ka qaadatay. waxaa ka mid ah mashruuca SDF ama loo yaqaano sanduuqa horumarinta Somaliland oo ay iska kaashadeen 4 dowladood ee Ingiriiska iyo dowladda Denmark, dowladda Norway iyo dowladda Netherlands. oo waxaa halkaas sanduuqa lagu soo shubo ku jiray ilaa lacag gaaraysa ilaa 460 milyan oo runtii laga hawlgeliyey mashaariic ballaaran oo wax ku oola oo dhinacyo badana dhinaca xagga wadooyinka, dhinaca biyaha, dhinaca beeraha, dhinaca kalluumaysiga, dhinaca xoolaha, deegaanka, intaasoo dhan runtii waa inoo wadaa qaybo wada muhiima. waxaa kaloo wasaaraddu ay qayb weyn ka qaadatay biyogelinta Hargeysa wanka mashruucaas si ballaaran uu socdo. waxaa kaloo qayb ka qaadatay dubu-habeynta ama dubu-qaabeynta sharciyada lagu maareeyo shaqaalaha, sharciyada lagu maareeyo maxaa miisaaniyadda, horumarinta qaybta gaarka loo leeyahay ama private sector-ka, dib u eegidda shuruucda maxaa dhulka. lafteeda waxaa gacan weynay waxay si weyn oo kaalin weyn ka gashay ka qaadatay maalgelinta dekedda Berbera iyo jidka Berbera ilaa Wajaale loo yaqaano Berbera corridor. waxaa kaloo ay qayb weyn ka qaadatay oo qayb ka tahay dib u eegista ganacsiga naga dhexeeya innaka iyo Ethiopia iyo sidii heshiis looga gaari lahaa sidii Ethiopia u isticmaali lahayd dekedeena iyo jidadkeena. waxaa kaloo ina jirta runtii wasaaraddu ay samaysay xidhiidh la yeelatay xidhiidh sokeeyeen la yeelatay hay-ado fara badan oo caalamiga oo ugu horreysay hay-addan DFID, hay-adda Danida oo wada shaqeyn sokeeye ay leeyihiin, World Bank bangiga dunida, bangiga African Development Bank ay ka mid yihiin, iyo hay-ado fara badan oo UN taaba inaan cilaaqaad sokeeye oo wanaagsan oo wada shaqeyneed inaanu la yeelanay. waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkayga mahadnaqan dooni halkan uga mahad celiyo. marka hore ilaahay baa iskale mahad subxaanahu watacaala. marka labaadna madaxweynaha ayaynu mahad celinaynaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ii suurta geliyey 5 sanood iyo 3 bilood inaan maxaa dhahdaa howlaha haddaan soo taxay inaan hormuud ka noqdo wasaaradda. waxaan kaloo aan jecel halkan uga mahad celiyo wasiirada faraha badan ee mashaariicdan soo tilmaamay igala shaqeeyay gacantaysiiyey. ugu dambeynna shaqaalaha wasaaradda oo runtii aan jecelahay in halkan uga mahad celiyo
hawshii adkayd ay la soo galeen iyo dadaalkoodiiba iyo intii kale maxaan idhahdaa aanan halkan ku magacaabin hawsha faraha badan leh nagala soo qayb qaadatay 5 sannadood ee na soo dhaafay aad iyo aad bay u mahadsantahay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.